السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كدب ومركلة إيو مقاركلة وجوي إيو جوي كله. رانتي waxaan isku dhaxwada doonaa xogta Soomaalida iyo barnaamijyada aniga sida qaaska u tabiyo aniga iyo teamkayga aniga oo ah King Solver iyo teamkayga King Solver team. run ahaantii waad ka heli doontaan wax walba aan aniga iyo teamkeena idin horkeena. haddii aadan ka helin commentiga ayaad inoo soo qori doontaan wax walba oo marka aad doonaysaan in aan ka bedelno. balse muuqaalkan sidaad ku soo aragteen ciwaanka waxaan doonayaa in aan qodobo dhowr ah ka yiraahdo wiilka Soomaaliyeed ee ku sugan Sweden. maxaa yeelay wiil Soomaaliyeed haddii uu Sweden joogo oo wadankiisa uusan joogin macnaheedu waa qaxooti. wiilkaas baanu dooni doonaa ayaanu dooni doonaa ayaan rabi doonaa ayaan isku dayi doonaa in aan falanqeeyo run ahaantii maadaama social media ay Soomaalidu siyaabo kala duwan ay ugu hadal qabsadeen. balse intaan muuqaalka ugu dogalin adiga muuqaalkan daawanaya waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa walaal subscribe like comment sidoo kale asxaabtaada la wadaag sida asxaabta TikTok-ga group-yada statuska group-ka messenger-ka group-yada Facebook-ga caadiga profile-kaaga maxaa yeelay anigu waxay ii noqon doontaa dhiirigelin adigana waxaan ku leeyahay alla ajar iyo xasanada kaasi maxaa yeelay xumaan maadan faafin. inta kadib waxaan ku rajeynayaa muuqaalkan inaad si naxariis leh si qurux badan joogdagana ku daawato. inta kadib adiga muuqaalkan daawanaya waxaan ku leeyahay maalintaadu ha qurux badnaato. inta kadib muuqaalkan yarkan jooga Sweden ee soo duubay isaga oo ku sugan meel uu ka shaqeynayo isla markaas tiro badan ay joogto baabuur tiro badan oo sida kuwa coosaska keena cooska fala beeraha hagaajiya cooska shiida caanaha sameeya waxyaabo badan marka ayada wuxuu joogaa warshad weyn ayuu joogaa ay muuqaal iska soo duubay dhammaan gibi ahaantiin hadii aadan la wada socon dadka muuqaalkayga daawanaya qayb kamid ah ugu yaraan ay la socoto wuxuu yiri waxaan doonayaa gabar Soomaaliyeed in aan helo YouTube ayuu furtay muuqaal ayuu soo geliyay soo dhahaya waxaan doonayaa in gabar Soomaaliyeed oo calafkayga ah aan helo waxaan waayay gabar aan Soomaali ah oo Sweden joogta oo aniga ii qalanta sida la ajligeed YouTube-ka ayaan soo dhigayaa ayuu hadaladiisa kamid ahaa. isla markiiba waxa hadana muuqaalkii xigay uu soo geliyay isagoo ay la joogaan 5 gabdhood sida muuqaalkan hadda ka arki kartaan. Come on girls. meeshan waa qaybta kale looda ilmaha jooga ayagana maxaa ku daamantay ma ku haya waa dareemi karaa sagalka dhamaantiisa dabcan muuqaalkan waxa uu muujinayaa wiilkii oo u imaadeen 5 gabdhood oo gabdhahaas oo kala soo xiriiray barta YouTube-kiisa uu soo geliyay kilibkii hore kadib isagoo kala xulanaya gabdhaha raadinaya tan isaga u qalanta. dabcan gabdhaha hadalada qaar wax kamid ah iyagoo leh sidan magacaygu waxaa la Shamso waxaan deganaa wadanka Sweden waxa uu imaaday barnaamijka Cali waxaan rajeynayaa inaan xaaskiisa noqon doono aan ku guuleysan doono. dabcan waxaan dareemi karnaa in wiilkan uu ku guuleystay missionkii ama aragtidii ama hadafkii uu lahaa. aniga aragtida aan ka arko iyo waxa kala duwan aragtida ay Soomaalida haday comment tahay iyo hadii ay YouTuber yihiinba ay ka bixiyaan. gabi ahaan ana soo koobaya aragtida ay Soomaalida ka bixisay ayaa waxay ahayd aragti ah in wiilkan uu qaldan yahay uu qalad kula kacay gabdhaha Soomaaliyeed mission aan caadeen uu la imaaday wixiisu ay ahayd maxaa la yiraahdaa waxay leeyihiin gabdhaha ayuu ku ciyaaraya hadba macnaheedu aragtiyooyin waxay ka muujiyeen negativity u badan negative wada ah gidigoodba ama gidigoodba raacay. balse aniga fikirkayga taa waa ka duwan yahay waxay tahay waxaan aragnaa waxaan uu wiilkan sameynayo inay tahay khiyaali. waxaan u jeednaa wiilkan iyo gabdhaha la jooga in ay waxaan isku ogaayeen. waxaa la soo ogaaday wiilkan qodhiisu inuu gabar qabo waxaas la yahay waxaa kaloo maankiinu gelisaan Soomaaliyeed in warshada inta la eg wiil yar oo da'da la eg aad u jeedaan
uusan lahaan karin weliba qaxooti ah oo waddankiisa hooyaan joogin kambani intaa la eg suu u lahaan karaa wiil 30 sano da'diisu ka yar tahay amaba la eg tahay weliba jooga qurbo weliba jooga Sweden aysan meesha aysan ahayn Kanada Mareykan haddaba waxaan inay khiyaali tahay waa loo jeedaa waxaan wiilkan inay tahay aragti oo ku fikiray oo ku kala kacsanayo YouTube-kiisa waa loo jeedaa way caddahay laakiin wixii waxaan u bedelnay in aan isaga ka dhibaatayno